ومروة مسلمة لغونا تريو دادك هانتيلياشا balse dhibkeeda ayaa waxa uu yahay inay tahay qof aad u qalafsan. waxay dhashay gabar yar oo da'dii 10aad gashay, waxayna gabadha yar ku barbaarisay inay dadka iska sarreysiiso, yacni isku haysato qof ka sarreeya dadka intiisa kale. mar ay xanuunsatay oo ay ku qasbanaatay in dibadda ay u baxdo, ay gabadha yarad waxay u geysay adeer deganaa tuulo aad u yar. 6 bilood kadib markii ay soo noqotay marwadii, waxa ay gaarigeedii u soo qaadatay tuuladii yareed ee u deganaa adeerku. markii ay timid lamaba fariidsan adeerkii, waxaan ka badnayn dhowr daqiiqo gabadheedii ayay gacanta ku soo dhegtay lana soo aaday dhankii gaariga. laakiin arrinta kidiska waxay ahayd in gaariguba markaa uusan gaarsiin karin qasrigeeda ama gurigeeda weyn, waxayna ku qasbanaatay inay tareenka soo raacdo. markii ay tareenkii soo raaceen oo uu soo baxay, waxaa u yimid iyagoo tareenka dhex fadhiya nin iibiya cuntooyinka fudud. dharkiisu waa jeexjeexan yahay, faqriguna wejigiisa ayuu ka muuqdaa. cuntadii fududeed ayuuna u soo bandhigay inay ka iibsadaan, laakiin inta si jeesjeesla u eegtay ayay tidhi, ma doonayo cuntadan ee iga fogee. intaa kadib gabadhii yarayd ayaa gacanta u taagtay dhankii cuntada uu wada ninkii faqiirka ahaa, yacni cuntadii fududayd. waxayna hooyadeed ku tidhi, hooya cuntadan ii iibi ama xoogaa lacaga si aan iibsadee. waa muhiim inaynu karaamayno oo xushmayno, ixtiraamnana ninkan faqiirka ah. waxayna gabadhii yarayd intaa ku sii dartay, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkii sharfa oo karaameeya qof faqiir ama cayr ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la kulmaa isagoo ilaahay uu raalli ka yahay. sidoo kale waxay akhrisay aayado qur'aan oo badan oo ay ku baratay guriga adeerkeed. hooyadii waxay ogaatay in gabadheedii yareed uu dabcigeedii iyo dhaqankeedii oo idil isbeddelay markii ay u geysay adeerkeed, iyadoona gabadhu akhriday aayado badan oo qur'aan oo ay ku baratay guriga adeerkeed. dhab ahaan dhaqankeedii wuu isbeddelay, waxaana noqotay mid naxariis iyo degganaan u saaxiiba. marwadii markii intaa ogaatayna aad bay u xanaaqday, waxayna ku tiri ninkii cuntada fudud iibinayay, iga dhaqaaq, ma doonayo inaan kuu sii jeedee. kadibna isagoo dhoolla caddaynaya oo la dhacsan akhlaaqda gabadha yar ayuu meeshii isaga tegey. waxaa loo soo dhowaaday dhammaadkii safarka. markii la soo gaaray halkii tareenku ku ekaa, ninkii iibinaya cuntooyinka fudud inta soo dega ayuu fadhiistay albaabka gaariga. marwadii iyo gabadheediina sidoo kale iyaguna waa ay soo degeen. gabadhiina markaan hooyadeedii ayay mar kale ku celisay, iyadoo odhanaysa, hooya lacag yarisii aan ka iibsada qayb ka mida cuntada uu wada eh. laakiin hooyadii ayaa gabadheedii waxay ku tidhi, waxba ha ka iibsan ninkan, waa nin xun, iska ilaali. gabdhaha yar waa uu dafaa, dadka waa uu dhibaateeyaa. gabadhaydii waxba ha ka iibsan, faraha ka qaad. kadibna waa ay soo baxeen iyada iyo gabadheedii. markay xoogaa sii socdeen ayaa waxay maqashay cod ka daba yeeraya, waaba ninkii faqiirka ahaa oo u gacan haatinaya, soona gadaal socda. markaasi ayay hooyadii cabsatay gabadheediiba, socodkii ayay boobsiyeen. waxay isdheheen wuu idin soo dabagelayaa, uuna idin dhibaataynayaa. mar qura ayay soo gaareen laamiga, waxayna joojisay marwadii gaari tagsi ahaa oo waddada marayay. markii ay gaariga gashay, waxaa soo gaaray oo ka daba yimid ninkii faqiirka ahaa. darawalkii ayay ku tidhi, boobsii gaariga dhaqaaji. laakiin markii uu soo gaaray, arrinkadiisa ayaa dhacday oo wuxuu u dhiibay jijin dahab ahayd oo qaali ah oo gabadheedu lahayd. isla markaaba aad bay u yaabtay. wuxuuna yidhi ninkii faqiirka ahaa, jijintan markii gabadhaadu ay ka soo degaysay tareenka ayay i siisay, sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay inaan u soo celiyo jijintan gabadhan qalbiga aadka u jilicsan leh ee naxariista badan. wuxuuna intaasii raaciyey, qaybtan cuntada ahna iyada ayaa iska leh. inta soo baxshay qayb ka mida cuntooyinkii fududaa ee uu iibinayey. hooyadii aad bay u yaxyaxday oo qajishay, kadibna way iska ooyday. waxayna u cudur daaratay ninkii ay qaladka ka fahantay. waxayna tidhi, run ahaantii muuqaalka qofka laguma xakumo, gudihiisa waxa ku jira ayaa ka qaalisan muuqaalka dusha ka muuqda. maalin dambena qofkuma kibrin, hadallo qaab daranna uma isticmaalin. gabadheedii akhlaaqda badnayd ee adeerkeed akhlaaqdeeda uu sabab u ahaa inuu isbeddesho ay aad ugu mahad celisay. waxayna ku dhihi jirtay gabadheeda, hooye macaan, waa inaad i bartaa akhlaaqdii, diintii, axaadiistii iyo qur-aankii aad ka soo baratay guriga adeerka. maalin dambena marwadaasi uma noqon akhlaaqdii qaabka darnayd ee ay dadka kula dhaqmi jirtay. gabadheediina waxay odhan jirtay, hal waajib ama hal salaad oo faral ah ima dhaafin markii aan joogay guriga adeerkay. haddaba qofka muuqaalkiisa ha ku xakumin. meeqa ayaa muuqaalkoodu iska liitaa, indhuhuna aysan jeclaysanayn inay eegaan, balse qalbigoodu yahay mid nadiif ah, sidoo kalena ku labisan akhlaaq, naxariis, degganaan iyo weliba degdeg la'aan. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم
ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا